tuug ayaa goor casar liiq ah waxa uu u dhacay guri ay ku nooleed islaan waayeel ah. wuxuu arkay tuugii islaantii oo soo jeeda, wuxuuna ku yidhi eeyahay maxaad la soo jeedaa xilligan? markiiba waxa ay garowsatay duqdii inuu yahay waxa la hadlaya tuug, waxayna ugu jawaabtay oo ay ku tidhi wiilkaygii waxaad u muuqataa qof wanaagsan oo duruufta ay ku kaliftay tuuganimada ee dahab badan ayaan haystaa ee qaado, laakiin inta aadan qaadan kadibna aadan bixin ka hor waxaan rabay riyo aan ku riyooday oo argagax leh oo aan ka seexan kari waayey inaad ii fasirtid haddii aad garanayso. tuugii waxa uu is yidhi oo markiiba maskaxdiisa ku soo dhacday in islaantu ay tahay mid doqon ah, isagoo gunuusaya oo hoos u leh bal aan dhegaysto riyadeeda kadibna aan u fasiro. markaas buu ku yidhi ii sheeg waxa aad ku riyootay. waxa ay islaantii tuugii ku tidhi waxa aan ku riyooday anigoo webi biyo badan ay ka buuxaan dhinaciisa socda, kadibna waa simbirraxday oon ku siibtay. kadib waxaan ku dhacay webigii, waxaana idhi cabdiyow iga soo gaadh, cabdiyow iga soo gaadh. si cod dheer leh ayay u tidhi. inta dambe tuugii ayaa ku yidhi islaantii yuu ahaa cabdigaas aad u qaylinaysay? isla markiiba waxaa albaabka iska soo furay oo qolka soo galay wiil ay dhashay oo cabdi la yidhaahdo oo xoog badnaa. wuxuuna markiiba ku booday tuugii isagoona bilaabay inuu garaaco. islaantii waayeelka ahayd waxay ku tidhi wiilkeedii cabdi bes ka dheh hooyo, intaas ayaa ku filane yuusan nagu dhiman, iska daa waxa. tuugii ayaa hadlay markii uu maqlay hadalka islaanta, wuxuuna yidhi si fiican ii garaa cabdiyow, anigaaba qaldanaa markii hore. ma waxa aan u yimid halkan in aan riyo fasiro, mise waxa aan u yimid in aan wax hado? haddii sheekadan ay ku cajab gelisay misena aad ka heshay, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad filow soo dhahdo halka cadna aad naga casayso. wixii fikradaysana kommentiga nagula wadaag. mahadsanid.